gudoomiye cali yuusuf waxa uu sheegay in tallaabadaasi ahayd mid sharci daraac oo dastuurka Soomaaliya ka soo horjeeda waxa uu cambaareeyay oo sheegay in dad ashkhaass oo dana gaar leh xeerkaasi golaha ay hor keeneen oo ay marsiisteen isagoo baaq u diray in wixii khilaafaad ee golahaasi ama xeerkaasi awoodaha lagaga dhimayo labada ku xigeen ee golaha wakiilada Soomaaliya wax laga qabto isagoo ka hadlaya waxa uu yiri gudoomiyaha labaad ee golaha wakiilada Soomaaliya mudane Cali Yuusuf Axmed golaha wakiilada intii uu jiray wuxuu lahaa shirgudoon buu lahaa dastuurka ayaana tilmaamaya nasiib darro shalay waxa dhacday shirgudoonkii in la baabiyay oo leeyahay gudoomiye kaliya ayaa jira labada ku xigeenna shirgudoonka kamid maaha dastuurka ayaana qoraya oo haddaan idin akhriyo qodobka 250 wuxuu leeyahay golaha wakiiladu waxay yeelanayaan xoghayn u madax bannaan xogayaha guud oo aan ka tirsanayn golaha wakiilada kana kaalmeeya shirgudoonka golaha hawlaha xafiiska dhammaan arrimaha maaliyadda iyo maamulka wuxuuna yeelanayaa ku xigeen kolka halkaasi waxa weeyaan shirgudoon baa jira tala wadaag baynu ku caanamaalay dastuurkeena tala wadaagaas ayuu ku salaysan yahay qodob kale oo halkana isagana faqradda saddexaad wuxuu leeyahay shaqaalaha kale ee xogaynta waxa shaqo gelinaya xogayaha guud marka uu ka helo ogolaansho shirgudoonka kolka xogayaha guudna shirgudoonka oo wada jir ah ama gooni ah ayaa howlgelinaya kii shalay la sameeyay shirgudoon kolkii uu baabiyay waxa la yidhi gudoomiye ayuun baa jira iyo xogaye guud kolka waxay u ekaatay sidii maamulkii wasaaradahoo kale ee wasiir iyo agaasimo guud ay xukumayeen ayaa laga dhigay shirgudoonkii ayaa la baabiyay taasina waa nasiib darro ka hor imanaysa dastuurka qaladka kale dhacay waxa weeyaan xeerkii la soo bandhigay buugga weyn oo 60 page ah oo 70 qodob ka kooban ayaa la keenay waxa sharcigu yahay marka la keeno xeer golaha loo keeno ee la soo badiyo in goluhu ugu yaraan 24 saacadood uu soo akhristo kan oo kale iyo kolku soo weyn yahay ka badan ayuu yeelanaya waxa kale oo jira waxa weeye xeerkan ku hore ayaa jiray qodob baa loogu codeeyay xildhibaanadu way ka doodaan halkan doodimayna dhicin in maaragtay isa soo qanjiirsatay ayaa meesha isugu timid gudoomiyuhuna wuu la ogaa marka intii ayaa maaragtay iyadoo aan lagaba fiirsan waxa meesha ku jira ma waafaqsan yahay sharciga ma waafaqsan yahay dastuur maalintii shalay ayaa golaha wakiilada Soomaaliya fadhiyo gudoominayay gudoomiye Ciro waxay cod ku ansixiyeen in wax ka bedel lagu sameeyo awoodaha labada shirgudoon ku xigeen waxay ku soo beegmaysaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay golaha wakiilada Soomaaliya shirgudoonkoodu khilaafaad xoogan oo dhinaca siyaasadda uu ka dhex jiray xisbiga laga xeerasaadku golaha u danaynaya kulmiye u danaynaya aqlabiyada kulmiye jirta wanaaga iyo sharafta goluhu keeno waa samcad ku dheeraran kulmiye oo wanaag u ah xeerasaadku kulmiye u danaynaya maaha shakhsi iyo meel maana xeer golo aan lahayn oo xeerasaadkiisa aan wanaajisan wuxuu samcad xumo ku yahay xisbiga kulmiyena dambu yahay kulmiyena kuma xuma lidina kuma aha goluhu waa gol wakiilka dastuurka waa kaas qodobka 250 ayaa qoraya shaqaalaha golaha wakiilada wuxuu yeelanayaa xoghaye u madax bannaan xogayaha guud
iyo ku-xigeenkiisu yeelanaya kana kaalmeeya shirgudoonka golaha marka shirgudoonkii way bedeleen business ayaa loo bedelay waa la bedelay shirgudoonkii marka shirgudoonka lama bedeli karo waa qodb historia taasaan